wareedadena meherada kale aan meheradani ku sii xigsiinayo waa cabaaya magas. cabaaya magas waxay ku taalaa laftirkeeda xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa. meheradani waxa lagu iibiyaa qurxinta dumarka dharkii iyo haday noqoto make-upkii, cadarkii, shandadihii, boorsooyinkii, alaabateeshii dumarka oo isku dhamaan tagay baan leeyahay. waxa iska leh dad ajnabi oo Yamaniyiin aniga ayaa idin sharaxi doona intan meheradaasi ku guda jiray barnaamijka bal ila soo daawadayaan waxba ka hor dhicina kadibna falaqaynta dib aynu ugu soo noqon doonaa daawasho wanaagsan. hagaag daawadayaal haddana waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeeni wararka ganacsiga ee waxaan ku suganahay meherada cabaaya magas oo ku taala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa. meheradan waxa iska leh ajaanib Yamaniyiin isla markaana wadanka ku aada dad qariiba meherad qurux badan ay ka fureen xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa. meheradan waxa lagu iibiyaa udubka dhanka dumarka iyo ragga labadaba sidoo kale waxa lagu iibiyaa qurxinta dumarka ee make-upka dharkii oo kala duwan. shayadan hadda xiranahay waxa iibisa meheradani cabaaya magas dabcan waa meherad aad u balaaran isla markaana dadka marka iyagoo caraba hadana jecel inay kugu soo dhaweeyaan si qurux badan Soomaaliga inay bartaan jecel dabcan ganacsigana qayb lixaad la kaga qaata marka la eegayo Soomaaliland iyo gaar ahaan caasimadda Hargeysa. meheradani aad arkaysaan muuqaaladeeda quruxda badan wada arki doontaan dhamaantiinba. barnaamijka wararka ganacsiga ay qayb ka tahay maanta maadaama ajnabi yihiin dad aan Soomaaliga garanaynin isla markaa waxa ay wakiisheen meheradoodii inaan anigu halkaas daawadayaasha aan uga sheego alaabta dhex taala. cabaayado qurux badan ayaa yaalaad arkaysaan sidoo kale dhanka toobabka iyo haday noqoto shandadihii gacanta oo dhanka labisaada quruxda dumarka aad laftirkooda u soo saaraya. meheradani guud ahaanba waxay koobsatay haday noqoto tayeenta iyo dharka quruxda badan ee cabaayadaha iyo sidoo kale make-upkii dumarka oo aan ka maqnayn marnaba haafafkii aad arkaysaan shaararkii haday noqoto fuwaalada ama sheeladaha la xidho dhanka labisyada iyo dhan walba cadarada iyo qayb kastaba aan ka maqnayn. boorsooyinkan hore u soo sheegay dharka iyaguna dhuudhuubka muxuu ahaa marka la jimicsiga iyo alaabahana way iibiyaan sidoo kale qaybo kasta oo dumar ah way ka qabtireen haday noqoto dhanka aroosyadooda toobabka xidhan lahaayeen meherada sidoo kale iyo qaybo kale fara badan oo meherada ay leedahay. run ahaantii ma soo koobi karo laakiin muuqaalada ayay kaga bogan doontaan isla markaana aniguna waxaan idin sheegi lahaa meheradani cabaaya magas oo ku taala kasoo horjeedka Guuleed Mall Guuleed Hotel baan u jeedaa inay dhamaantiiba aydan moogaanin. waa meherad qurux badan dharka iyo haday noqoto toobabka iyo cabaayadaha iyo dhan walbana idinka qabtiri doona. waa carab hadana jecel inay Soomaalidii soo dhaweeyaan isla markaana ay isfahmaan iyagoo waliba luqadda ay ku adag tahay marka waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada meherada cabaaya magas way diraali garin doonaa. qiimaha ay dabcan meheradani kaga duwan tahay meheradaha kalena waa qiimo idin raali gelin doona marka lagu soo wakiishana aad bay u adag tahay dabcan waxaan idin leeyahay meherada cabaaya magas iyaan la moogaan ee ku soo dhawaada. haafaf aad qurux badan garamaanta haday noqoto sida shaararka haafafka intuba wallahi way idin cajabin doonaan marka waxaan idin leeyahay hablaha moogaanina meherada cabaaya magas. daawadayaal qaybtana waxa weeyaan qaybtii uduga haday noqoto dhan walba cadaraanti iyo sidoo kale rag iyo dumarba inta badan waxay ka dambeeyay arkaysaan waa make-upkii iyo xamuuradihii sidoo kale alaabtii unsiyada lagu shideynayna meesha kama maqna oo qalabkii oo electroniga. meherada cabaaya magas daawadayaal waxaan idin leeyahay marka ku soo dhawaada waa meherad wallahi tayada aad u sareyso dad maasha Allah ay joogaan qaybtii make-upka leeyahay laftirkooda bal daawadayaasha dayaratus waa maagi oo dabcan original isla markaana aan hubayna hawlo badan la cajabayaan kana waa ay shaarooyadii oo kala duwan marka waxaan idin leeyahay meherada cabaaya magas ku soo dhawaada hablo hana moogaanina contourkii ana hubooyin badan oo idin kamid way garanaysaa meheradana hablo aad bay ugu xiran yihiin kale cabaaya magas laftirkooda ay cusub tahay. meheradu waa meheradiini waa meherad la idin joogo isla markaana dad xaga soo dhaweynta iyagoo hadana Soomaaliyahayni ay aad ugu firfircoon yihiin isla markaana ay ugu dhiiran yihiin waxaan idin leeyahay marka timaadana dabcan waa dad ay dani dabcan in soo biday isla markaana haday inagu tagno aan aad uga shaqeysanay
bal hadda ajnabigana xoog baa dhalinyaro kale oo barnaamij ka qayb noqon doonta wararka ganacsigana waad kaga bogan doontaane bal iyaan la moogaan baan idin leeyahay waa sidaa iyo barnaamijkii wararka ganacsiga waa hagaag daawadayaal xubintaasina waxaan rajaynayaa inaad aad ula dhacdan isla markaasi meheradaasi cabaaya magas ee ku taala xaafadda Jigjiga ee magaalada Hargeysa ka soo horjeedka hotel Guuleed inaad dabcan aad uga bogateen bartay ku taala kulli mar hadaan idin sheegayba waxaad sugtaanba waa inaad tagtaan oo ka soo adeegataan meheradaasi meheradahan ku soo qaadanay barnaamijkeena ee maanta ku xusnaa waxa kamid ah sweet iftin iyo sidoo kale eagle decoration maxadar xul iyo xarago iyo sidoo kale cabaaya magas shantaasi meheradooda ayaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadanay wararka ganacsiga barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa aniga waa Maxamed Abubakar waxa qayb lixaad la ka qaatay barnaamijkani Axmed Saki Ibrahim oo aad ugu mahad celinayo dadka kamarada muuqaalkaas quruxda badan leh aad arkaysaan dhamaantiin balaantiin aan suuragal noqoteen aniga idinku inaas aragno waa aadan Axmed aadan madani dhanka editingka iyo sidoo kale farsamada barnaamijkana waa Axmed Chiti intaana ka bixin daawadeel waxaan idin leeyahay ku xidhnow barnaamijka wararka ganacsiga ee Badda Cas 24 TV intaynu barnaamijka xiga ku kulmi doono waa Maxamed Abubakar oo idin leh sidaas iyo nabad geliyo